إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ولا ليال waxaan kalimaad kooban ka odhan lahaa insha allahu tacaalaa mowduuc aan u arkay inuu yahay muhiim. cid ka hadashay iyo cid wax ka tidhina malaa iska yar tahayba. waxaana wax ka odhan lahaa mowduuca ah descriptionka ama definitionka ay scientistigu siiyaan living and non-living thingska iyo weliba characteriska ay ku qeexaan kuwaas oo wax badan ku khilaafsan qaabka ay diinteena islaamku u qeexday waxyaabaha nool ama ruuxda leh iyo waxaan ruuxda lahayn. intaanaanan horta walaalayaal ka hor mawduuca u gundadegin waxaan wax ka odhan lahaa horta qariib ma aha inay dadka muslimiintu la arko rag wadaado ka hadlaya ama nin wadaado ka hadlaya cilmi maadiya. awal waqtiyadii hore dadka muslimiintu xad iyo dheef aada iyo aada u badan ayay ku lahaayeen cilmiga maadiga ah. diinigana inta hadalkooda bay iska daayo waa diintooda islaamka. laakiin waqtiyadii dambe unbaa dadka muslimiintaa markii ducafaa-ul iimaankii ku batay iyaga diintii ilaahay ka jeedsadeen ahmiyaddii badneed ee ilaahay subxaanahu watacaalaa u keenay arladan qaar badani ay dayaceen ayuu wahnigani ku dhacay. laakiin qariib maaha. hal tusaala soo qaadanayaayo tilmaamaya qaabkii dadkii hore muslimiintu ay iyagu xitaa iska daayay inay bartaane ikhtiraacad bay samayn jireen. waxaa la idhahdaa maadada la idhaahdo alcohol. nin muslina ayaa soo ikhtiraacay ama soo saaray. kadib maadada markuu soo saaray mustalixii iyo ereybixintii u bixiyey wuxuu kasoo istimbaaday aayadda qur-aanka ah ee suuratu saafaad ku jirta. ilaahay leeyahay yudaafu calayhim bikaasin min maciin baydaaa ladatin lishaaribiin laa fiiha qowlun walaa hum canha yansifuun. markuu ilaahay ka hadlayay ahlu jannahu sharaabka cabbayaan. waayo maadadan alkooshu qofka caqligiisii iyo maankiisii bay ka haysaa. sidaa daraaddeed ilaahayna wuxuu tilmaamaya sharaabka ay ahlu jannuhu ku cabbi doonaan jannada inaanu ahayn wax maskaxda qofka kaxeeya. kadibna istilaaxii uu maadada u bixinayay aayaddan u ka istimbaado kalimatul qowl ayuu bixiyey. raggan gaalada ama reer yurubku qaynkiibay kari waayeen baa leeyi. markaasaa waxay u bixiyeen alcohol. maantana wadamadan carabiga ku dhigta maadigu maadada alcohol waxaa loo bedelay oo mustalax u ah alkuxuul, kalimatu alkuxuul. marka horta taasi waxayna tusinaysaa iyo waxyaabo badan way jiri jirtay. culimadii hore xitaa shaykhan imaam nawowi caleyhi raxmatullaahi tacaalaa xitaa berigu dalabulcilmiga diiniga waday wuxuu isku dayay baa la idhaahdaa xitaa marka loo tarjameynayo taariikhdiisa laga warramayo inuu cilmiga dibigana barto. waxba yaanan ku dheeraan hadalka, laakiin waxaasoo dhan iyo waxyaabo badan oo dee dadku ka dharagsan yihiinba awal dadka muslimiintu maadigana way baran jireen, diintoodana way baran jireen, adduunkana iyagaa hogaamin jiray. ilaahayna waa ka qur-aanka ku leey walaa tahinu walaa taxsanu waantum laclown. haddaan intaa uga socdo walaalayaal scientistigu waxyaabahan ay soo saarayaan inta badan raggani maskaxdoodii ka shaqaysiiyeen iyagoo adeegsanaya tajribaadkay samaynayaan iyo raggii ka horreeyey khibradihii iyo waxyaabahay baadheen ay soo saareen. waxyaabahaasina dhowr shay unbay noqon karaan. wax diinteennu ka hadashay oo iyaguna tajrib ahaan ay ku gaadheen taa dee wa iska caddaa in wax saxaya. wax qur-aankeenu noo sii sheegay in wax saa yahay iyaguna markay baadheen ay tajrib ahaan ku gaadheen inay saa noqonayso dee taa cidibo kama wada hadlayso. waxyaabaha qaarkoodna waxaa dhici karaa waxyaabahaanay diinteennu ka hadal oo iyagu ay tajrib ahaan ku keeneen
iyo dadaal waxyaabahana dagaalun maahae xitaa dad muslimiina laftoodu waxyaaba ay dadaal ku keeneen baa dhici karta oo diintu aanay ka hadan dee taana wax lagu diido ama lagaga hor yimaadaa lamaba hayadade laakiin masaladanna aan kaga hadlaya waxa weeyaan waxaa dhacda mararka qaarkood waxyaabaa dadka qaarkood intay baadheen dadaalna ku bixiyeen ay tajribo xitaa ku gaadheen oo diinta islaamka ka hor imanaya ilaahayna uu tilmaamay cilmi ka xeel dheer ama ka fog inuu ku jiro shayga ilaahayna da qur-aanka markuu raggan gaalada ka hadlayay waa kii lahaa cilmiga laga siiyey waxa weeyaan waa cilmi qaliila waka ilaahay qur-aanka ku tilmaamay waxyaabaha horta inta badanna waxay adeegsadaan nin caqligooda caqliguna walaalayaal waxyaabo badan oo aan lagu garan karin baa jira oo ka awood badan tusaale ahaan diinteenna islaamka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoogu tilmaamay nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam kaliimullah buu ahaa ilaahay buu la hadli jiray ilaahay wuxuu ka codsaday inuu ilaahay uu arko waka ilaahay qur-aanka ku le walamaa jaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuh qaala rabbi arinii andur ilayk qaala lan taraanii walakin undur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falama tajallaa rabbahu liljabali jacalahu dakaa'a wakara muusa saciqa falamaa aafaqa qaala subxaanaka tubtu ilayka wa ana awalu lmu'miniin nabiyullaahi muusa calayhi salaam ilaahay buu ka dalbay inuu ilaahay istusiyo arko adduunkana in ilaahay lagu arkaa waa mustaxiil ilaahay ma qadarin waayo ilaahay awood ba inoomu siin sida aayadan baa ku cad in indhahaynu awood uma lahaa inay ilaahay adduunkan aynu ka arag kadibna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku yihi nebi muuse buurtaa eg buurtaasi hadday halkeedaa ku sugnaatoodii arkaysaa buu ilaahay subxaanahu watacaala yidhi kadib ilaahay subxaanahu watacaala xijaabkii ayuu iska feeday waayo ilaahay subxaanahu watacaala koonka ama adduunka oo dhan xijaab baa kaga dadan xijaabkuna wuxuu ku dadan yahay koonka waayo ilaahay subxaanahu watacaala cid koobi karaysaa ama makhluuq koobi karayaa ma jirto falamaa tajallaa rabbahu liljabali markuu ilaahay subxaanahu watacaala xijaabkii iska feeday uu isku muujiyey buurtii jacalahu dakaa wakara muusa saciqa buurtii inaanay sideedii ahaan oy burburtay ayay qur-aanku tilmaamaya nebi muusena uu suuxay markuu nebi muuse soo kacayna ilaahay buu subxaanahu watacaala dembi dhaaf uu weydiistay una tasbiixsaday walaalayaal adduunka waxyaaba aan maskaxda bini aadanku aanay qaadi karin baa jira indhahaagu waxyaaba aanay qaadi karin baa jira saas oo kale iska da inagu dad muslimiinaynu laakiin waxaa dhici karaya tusaale ahaan ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramay inay jiraan dad sidii nebi sulaymaan oo kale afyaqaana quraanjada ama xayawaanaadka hadalkooda maanta nin aan muslim ahayn haddaad ku tidhaahdo nebiyullaahi sulaymaan ama qofkaas xayawaanaadkaas uu afyaqaanaa ama uu la hadlaa wuu cajiibsanaya uu qariibsanaya diinteenuna waxay tilmaantay wax dhacayba inuu ahaa waa ka ilaahay qur-aanka ku leh xataa idaa aatow calaa waadi namli xataa idaa aatow calaa waadi nnamli qaalat namlatu yaa ayuha nnamlu dkhuluu masaakinakum laa yaxtimanakum sulaymaanu wa junuuduhu wahum laa yashcuruun nebiyullaahi sulaymaan ayay quraanjadii leedahay intii kuwoodii kale la hadashay war iska ilaaliya sulaymaan iyo ciidankiisu yaanayni jeedhinin bale diinteenu waxay tilmaantay dadka qubuurta lagu cadaabayo ee cadaabulqabrigu ku socdo ee aadka loo cadaabayaa inay xayawaanaadku iyo jamaadaadku maqlaan qayladooda walihaadaaba xayawaanaadku markay soo maraan meelaha qubuurta way didaan nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalin isagoo saxaabada ma garanaysaa ee la socda ayaa hal uu saarnaa ama neef uu saarnaabaa diday faxaadat bihi xataa kaadat tulqiih bay axaadiisu sheegaysa siday u didayna waxay ku dhawaatay inay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaame tuurto markii hareeraha la eegayna waxaa la ogaaday inay meesha xabaalo ka dhow yihiin oo dad la cadaabaya ay meesha ku jiraan
inagu ma maqalno awooddaa ma lihi nabiyullaahi maxamedna wuu tilmaamay in isaga la maqashiiyo bale wuxuu tilmaamay haddaanan ka baqanayn buu yihi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad is-aasi weydaan ilaahay baan baryi lahaa waxaan odhan lahaa ilaahayow ummadayda maqashii cadaabulqabri laakiin waxaan ka baqayaa haddii layni maqashiyo inaad is-aasi weydaan walaalayaal horta waxyaaba aan qofka bini aadankaa ama cuquusha lagu garan karin baa jirta saasoo kale culimadu markay ka hadlayaanna waxay idhaahdaan caqliga bini aadamku waa saa tooshka oo kale tooshka iftiinkiisu iftiin wuu leeyahy guri wuu ku iifinayaa meel waad ku iifsan karaysaa laakiin marka loo eego cadceeda iyo nalalkaa waaweyn iftiinkiisu intuu kaga dhacayo dawaad garan karaysa waa wax aada u yar saasoo kale haddaad tidhaa habeen gud curaan ku gudaya wuxuu kuu iifinayaaba iska yar caqliga bini aadamkuna waa sidaa meelaha soke iyo waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay wuu iifinaya caqliga bini aadamku laakiin waxyaabaha aanu ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagelin haddii la idhaa ha lagu iifiyo ha lagu garto waa lagu lumayaa intaana hordhac hayga ahaato waxaan doonayaa walaalayaal inaan u gundagalo mawduucaan rabay inaan kelimaadka kooban ka idhaa scientistigu markay ka hadlayaan waxyaabaha nool ee ruuxda leh iyo waxyaabaha nooleyn laba shay oo keliya kusoo kooban waxay idhaahdaan waa animals and plants waxyaabaha nool ee ruuxda leh kow waxaan leenahay diinta islaamka waxay tilmaantay walaalayaal waxyaabo badan oo xayawaan iyo dhir aan ahayn inay nool yihiin iyo caalamyo badan inay jiraan waxaana ka mid a waxyaabaha nool ee diinteennu inoo tilmaantay malaa'igta waxaa ka mid a jinka bale diinteennu waxay tilmaantay inuu jinku leeyahay duriyad iyo qabiil iyo ciyaal inuu dhinto inuu wax cuno inuu seexdo dhammaan san aynu u dhaqmaynoo kale inay u dhaqmaan walihaada baa ilaahay subxaanahu watacaala waa kii suuratu lkahfi ku lahaa waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa kana min aljini fafasaqa can amri rabbi afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa min duunii wahum lakum caduw bi'sa lidaalimiina badala aayadda maxalushaahidkaan usoo qaatay waxaa weeyaan afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa min duuni kaana min aljinina waa laga xagga horu ilaahay ibliis jinkuu ka mid ah saasoo kale ilaahay wuxuu leeyahy isaga iyo duriyaddiisa ma awliyaad ka dhiganaysa yacni jinku duriyad iyo wax isdhala ayuu leeyahy suuratu alacraafna waa ka ilaahay subxaanahu watacaala ku leh inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahu isaga iyo qabiilkiisu waxay niga arkayaan meel aanay idinka arkayn saas oo kale ibliis waa kii lahaa qaala rabbi faandirnii ilaa yawmi yubcathuun qaala fa innaka min almundariin ilaa yawmi alwaqti almacluum ilaahayow haydilin ilaa maalinta layso soo saaray ilaa qiyaamaha ilaahayow ikaad yacnii uu dhintay ibliis iyo shayaadiintii iyo jimanku way dhimanaya waxyaabaha nooli walaalayaal labadaasoo keliyaata maaha ay diinteennu inoo sheegtay reasoniskan iyo characteristicskan ay u dhigayaanna markaan eegay anigu diintana culimadu say anigu diinta waxaan fasiranaya maaha waxa weeyaan waxa culimada iyo diinta iyo culimadu un ku fasireen idinkuna way idin arki doontaan characteristicskan ay u dhigayaan ama reasoniskan ay leeyihiin shay kastoo nool ayaa iska leh waxa weeyaan bahalkii haddaynu tirino ko waxay idhahdaan shay kastoo nooli wuxuu leeyahay markay idhahdaan dhir iyo xayawaan ubaa nool waxyaabaha kale aan nooleynna waxay kaga gadisan yihiin 7 shay shay kastoo laga helo 7daa shayna waa wax ruux loo nool ko waxay idhahdaan shaygaas waa inuu feeding leey waa inuu wax quuto oo wax cunaa xayawaanaadka iyaga waxay idhaahdaan iyo bini aadanku waxa weeyaan hytotrophic nutrition qaab la idhaa ay quutaan oo cuntadooda iyagu waxay ka helaan dhirtaas ay cunayaan iyo xayawaanada kale eryanayaan ama cunayaan ama ay soo gaadhsanayaan dhirtu iyadu way ka duwan tahay bay idhaahdaano waa autotrophic nutrition qaab la idhaa ama process la idhaa bay ku qaadataa oo complex components ayay waxyaabaheeda ka samaysataa sida carbon dioxide-ka waterka sunlight-ka
iyo mineralska ay ciidda rootskeeda kaga soo qaadanayso. ka labaad waxa weeyaan breathing, shay kastoo nooli wuu neefsadaa bay idhaahdaa, oo animalisku iyo bini aadankuba oo dee uu ku jiro isaguna waxay neefsadaa bay idhahdaan oxygen, carbon dioxidena uu soo tuuro. dhirtu iyadu way khilaafsan tahay oo habeenkii mooyaane subaxii waxay qaadataa carbon dioxide, oxygenna way soo daysaa, laakiin habeenkii ayay oxygen qaadataa bay idhahdaano carbon dioxide soo daysaa. waa kuwana idhaha qofku hadduu hoos seexda habeenkii madaxaa ku xanuuna. ta saddexaad ay sheegaan waxa weeyaan movement, inuu shaygaasi leeyahay dhaqdhaqaaq. xayawaanka waa kan dhaqaaqayo, meel buu ka tegayaa, meel kaluu tegaya, waa kan iska daadayn meel yaro dhow tagay qaaradaaba iminka la jeexaya. dhirtu iyadu movementiga qaabkay u sameeyaan process kaley raaciyaanoo de ilaan dhirtu ma dhaqaaqdo, geedku weligii halkaa iskama kaxaynaya laga jaro meel kale lagu abqaale ama la geeyo mooyaane. waxay idhahdaan qaabkuu dhaqaaqaa waxay geliyaan qaab la idhaha tropism, oo phototropism iyo geotropism ayaa la geliyaa, oo tajribana way ku sameeyaanoo iftiinkaa laga qariyaa, meel yaroo keliya iftiinka looga furaa, kadibna geedkii jiridiisii iyo laantiisi waxay u baxaysaa halka iftiinku uu ka soo gelayo. ka kale waxa weeyaan bahalkii growth, waxa weeyaan bahalkii korniin, waa inuu shay kastoo nooli wuu koraa bay idhahdaan, oo qofkii bini aadankii ama xayawaankii isagoo yar buu korayaa, sanadba waxba ku kordhaya, waa kaa weynaanaya. dhirtuna way kortaayado iyaduna wataa la arkay. ta kaley sheegaan waxaa ka mida bahalkii reproduction, in wixii tarmo oo uu magaranaysaay jiilka jiil oo wixii dad wax tarmaya yahay. taana labaduba way sameeyaan, labada noocay sheegaanba sexual and asexual reproduction labadaba. reasonka kale la sheego waxaa ka mida ama uu yahay excretion, qashinsaar, oo magaranaysaa dhirtu qashinsaar bay samaysaa, oo waatan vibrationka samaysay biyaha dibadda iskaga saarta. bini aadankuna waa kan kaajay iyo dhididkan ka baxay, adigu excretion buu sameeyaa bay idhahdaan. saas oo kale waxyaabahay sheegaan waxaa ka mid a shay kastoo nooli wuxuu ka samaysan yahay sal bay idhahdaan, oo waa inu sal yeesho. toddobadan reason ama magaranaysaayay astaamood ay u dhigeen shayga nool iyo kaan nooleen baa lagu kala garanaya. diiniyan horta oo wax daciifa waanaan ka jawaabi doonaa. kow waxaan leenahay horta waxaanay tilmaamayaan in shaygani uu system leeyahay, tajribana lagu keenay, laakiin ma tilmaamayso shaygani ruux buu leeyahay. waxa tusaale u ah waxaa jirta shay systemkiisu shaqeynaya oo bilaa ruuxa mararka qaarkood. taa macnaheeduna waxay ka dhigan tahay dhirtu iyadoon ruux lahayn oo nooleyn ayuu systemkeedan iyo waxeedana shaqaynaya. de waayo waxaynu ku beeninaa ma jirto, dhirtu way kortaa waa run, way neefsataa waa run, waxaanay sheegayaan waa run, laakiin waxaa meesha ku jira waan leenahay innaga diinta inooga warrantay dhirtu iyadoo waxaan oo dhan leh ayaanay ruux lahayn. maxaa lagaga jawaabaya? waxaa lagaga jawaabaya qofka bini aadankaa marxalad baa jirta aanu ruux lahayn, laakiin systemka jidhkiisa oo dhani uu shaqaynayo. waxaa ka mida xilliga uu ilmuhu calooshiisa ku jiro. nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ina axadakum yajmacu khalqahu fii badni ummihi 40 yawman nudfatan huma yakunu calaqatan mithlu dalik huma yakunu mudqatan mithla dalik huma yursalu ilayhi lmalaku fayunfaku fiihi ruux. nabigu wuxuu tilmaamay qofka bini aadankaa caloosha hooyadii intuu 40 cisho markuu ku jiro waxa weeyaan waa nudfa, waa candhuuf. 40 cisho kadib wuxuu noqonayaa 40ka ku xiga wuxuu noqonayaa bahalkii mudqa, calaaquu noqonayaa maye. 40ka kusii xiguu mudqa noqonaya. 3/4 waxa weeyaan 120 habeen kadib ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam leeyahay ayaa ilmihii ruuxda lagu afuufay. scientistiga iyo culumta maadiga dadka dhigtaana way og yihiino waa la isla wada ogol yahay ilmaha caloosha ku jira intaa uu saa yahay oo dhan in systemkii iyo feeding uu samaynayo oo jirhkiisii oo dhan xitaa excretion uu samaynayo jirhkiisii oo dhan shaqaynayo. waa la isla ogolyahay. ka kaale
saasoo kale waxaa jirtaa qofka bini aadanka xilligu hurdo ee uu seexdo ruuxdu way ka maqan tahay oo ruuxdii waa laga qabtay qofka. haddana waynu ognahay qofki waa neefsanayaa, breathing systemkiisa waa shaqaynayaa, digestive systemkiisa waa shaqaynayaa, circulation systemkiisa waa dhammaan jirkiisa oo dhan sidiisa buu shaqaynaya, haddana waa bilaa ruux. hadduu hadlo ma garanayo wuxuu ku hadlo, ducaa oo dhan caytama berri marku soo kaco waa la iska garanaya, wuxuu odhanaya maxaa meelaha waxba sameeyey ya, waayo qofki ruuxdii baa ka maqan. saasoo kale haddii cidila hadasho ma garan karayo, ma jawaabi karayo, xitaa hadduu maskaag seexdo war uma hayo dawa kaa hurda, waayo qofki ruux baa ka maqan. saasoo kale waxaan leenahay waxaa jira shay ma noolaa oo diinteennu sheegtay inaanu noolayn oonu ruux lahayn, haddana astaamahan 7 ah ee scientistigu u dhigayaan shayga nool iyo shayga aan noolayn baa lagu kala gartaa isaguna leh. shaygaas waxa weeyaan shayga la idhaa timaha. diinteennu waxay tilmaantay timuhu inaanu noolayn, ama shaygan dhogorta, xayawaanka dhogorta saaran, ama innaga timahayna saaran wax nool maaha. ragga scientistiguna marka hadlayaan iyaguna waxay idhaahdaan waxa weeyaan the non-living part of the body ayay ka mid yihiin timuhu, qaybaha jidhka ka tirsan ee aan noolayn, cidyaha iyo timaha iyo waxa la midka. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday neefka xoolaha ah markuu nool yahay in hilibkiisa la goosto, neefkii oon la gowricin in la goosto qayb jirkiisi ka mida in la goostoo la cuno, nebiguu diiday wuxuuna ku tilmaamay baktiya shay xaaraana. haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu fasaxay in neefka laga guran karo dhogortiisa, oo dhogortii laga guran karo, ama dhar laga samaysan karo, ama si kale loo intifaacsan karo, laga faa'iidaysan karayo. sababtuna waxa weeyaan timuhu ma noola. dee fuqahaduna way ka warrama, xitaa iska daayo dee inagu waynu garanayna maanta hadday timahaagu ruux leeyihiin oy nool yihiin way damqan lahaayeen. marka rayslaha tagtee timaha lagaa xiirayo dee timahaagu way damqan lahaayeen. iyaguna waxay idhahdaano dee waaba laisla ogoliyo tan waxba ku dheeraan mayne, timuhu ma noola. hadda waxaan uga socdaa 7 astaamood timuhu way maraan, oo timuhu feeding way sameeyaan, waxbay quutaan, oo maanta intaad nooshahay timahaagu way baxayaan, way dheeraanayaan, laakiin maalintaad dhimato timahaagu way daadanayaan, waayo nafaqo iyo waxay ku baxaan iyo midna ma haystaan. ka kaalay breathingna way sameeyaan, iyaga excretion bade timuhu ma garanaysaa qashsaar way sameeyaan iyo neefsashabade, oo adigan arkayo dhididkan iyo uskagan iyo urba xitaa sameeyaan, timaha ur ayay sameynayaan. saasoo kale movement way sameeyaan, iyagaana taaba ka warramade oo waxay idhahdaan timaa jira qaybaha jidhkee gudaha ku jira, kuwaasoo iminka waxaa jira hawada aynu qaadanayno dust particles baynu qaadanaa, waa innagan banaanka usoo tufayna xaakadan iyo duufkan iyo waxyaabaha saacidaya in waxaa lasoo qabto hawada nadiiftaa laga soo reebo. waxaa ka mid ah timo jidhkaaga gudihiisa ku jira, sankan iyo ku jira. timahaasi dust particleska say usoo qabanayaan dhaqaaq bay kusoo qabtaan bay dhacda. marka waxa weeyaan way dhaqaaqaan, iyagaaba sheeg garowsna way sameeyaan de timuhu, oo timahaagii caawa dad xirto uun korayabadii iskaba daayo dee xitaa iminka waa la beeraaba, nin dukuran ama bidaarlo almasaa dee timo loo samaynayo, reproductionna way sameeyaan. inaga sheegina waaba la beeraa. geedaha waxaa jira geeduhu 2 nooc bay u baxaan, oo qaar dee labiyo dhidi ku baahan, iyo qaar geedkii waa la jabinayaa unoo meel kale laga taagaya geedka saasuu ku baxaya. waxaa ka mida geedkan cinabka la idhaa iyo xayaabka iyo muuska iyo geedahaas laan ka mid unbaad soo jabinaysaa, ciiddaad gelinaysaa, saasuu ku baxaya. timuhuna dee waxba kagamado, cawskaa ka mid a, cawska waa la soo gooyaa meel unbaa lagu beeraa, saasuu ku baxaa caws. waa tan iminkana timi waa la soo goynaya, waa la beerayaa, saasay ku baxaya. waxaa timid shay kastoo nooli sel buu leey. timuhu markay ka warramayaan waxay idhahdaan waxay ka samaysan yihiin brotiin. plantiska halkaa waad odhan kartaa malaa filimba malaa maxaa jira halkaa, laakiin waxaan leenahay waxyaabaha diinteennu tilmaantay inay nool yihiin ama ay ruux leeyihiin isku wax kama samaysa. tusaale ahaan ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay
jinka in laga abuuray naar dab saasoo kale ilahay wuxuu tilmaamay bini aadamka in laga abuuray ciid ilahay wuxuu tilmaamay malaa'igta in laga abuuray nuur khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min diin waa kii ibliis lahaa ilahay anna waxaad iga abuurtay dab aadan ciid baad ka abuurtay wa khuliqat ilmalaa'ikatu binnuur buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis ku tilmaamaya malaa'igtana waxaa laga abuuray nuur markaa taa waxaan leenahay kaga jawaabaynaa waxyaabaha nool ama waxyaabahaan nooleen muhiim maaha waxyaabahay ka samaysan yihiin inay isku mid noqdaan taana diinteenaabay noo sheegay ugu dambeyn waxaan kusoo koobi lahaa oon iyadana aan kaga hadli lahaa waxaa jira xukun diinteena islaamku ay kala qaaday xayawaanaadka iyo dhirta oy ku caddaynayso inaanay dhirtu nooleen ruuxna lahayn xukunkaas waaxay waa xukunka loo yaqaano sawirka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iminka ma doonayaan uu kama hadlayo sawirka laakiin masaladan ay la gashay sawirku nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka digay dadka sawiraya ma garanaysaayey haddana saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam kumay darin sawirka xaaraantee nebigu ka hadlay in ma garanaysaayey bahalkii ka dhirtuu soo gelayo sida saciid ibnu abilxasan uu warinayo wuxuu yihi cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhu ayaa maalin waxaa u yimid nin markaasuu ku yihi cabdillaahi ibnu cabbaasow waxbaan sawiraa ee ii fatwo nin wax sawiraa hawshaa ku shaqaystaan ahe bal iiga fatwo cabdullaahi ibnu cabbaas uu yeedho wuxuu ku yihi ii soo dhawee sawirkiibuu eegay wuxuu sameeyey wuxuu ku yihi waxaan ku odhanayaa hadal uu nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam igu yidhi hadalkaas waa maxay wuxuu ku yidhi nebigu wuxuu ii tilmaamo uu ii sheegay inuu kullu musawirin fi naar nin kastoo wax sawiraa inuu naar gelayo ee haddaad sawir ka tegi weydo wain kunta laabudda faacilan fasnaci shajara wamaa laa nafasa lahu haddaad ka tegi weydo sawir war dhirta iyo waxaan nafta lahayn sawir ayuu ku yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa kale uu isna tilmaamay maalinta qiyaame dadkii wax sawiri jiray waxaa la odhan doonaa wixii aad sawirteen nooleeya oo ruux geliya yuqaalu lahum axyu maa khalaqtu wati xadiiska ku jirta waxaa la odhan doonaa nooleeya oo ruux ku afuufa wixii aad sawirteen walihaadaa haddii laga reebay dhirtii cabdullaahi ibnu cabbaas saxaabiga sidan fatwoonayaa waa fuqahaau saxaaba nebi maxamed baa ugu duceeyey allahuma callimhu ta'wiil wafaqihu fi ddiin ilaahu diintana bar oo ilaahu cilmiga tafsiirka ta'wiilku waxa tafsiirkii qur-aanka allahuma callimhu ta'wiil ilaahu tafsiirkana bar diintana fahansii buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey ducada nebiguna de laa shaka inay maqbuulata bale waa raggi cilmiga loo soo doonan jiray ayaa ka reebay dhirtu inaanay soo gelin wixii ruuxda lahaa dee nebiguna markuu leeyahy waxaa la isku ciqaabayaaba in ruux loo geliyo taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay dhirtu ruux male walaalayaal anigu waxaan samaystayna maaha oo dee horta casharkii ugu horreeye garanaysaa nin science dhigta ama nin caafimaad dhigtaa uu qaadan jiray baan caawa ku kacay malaha rag badan nooca laga yaabaa inay aada u qariibsadaan laakiin intii aan diinta anigu ka garanayay unbaan kaga hadlay haddaan wax qaldayna waa fa min nafsi wa min ashaytaan haddaan wax saxayna waa halkaa leh سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرط